السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وايدين سلامي دمانتينا أصحابتي دقالي جميل الباجوكتين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان مبارك، رمضان كما شاء الله تبارك الله هو بجبو إلهي النصر خير كيسنا نور ريبو. انتي حنوسنا الله عافيو، انتي عافي ما تخبتنا ربها وزائديو ما شاء الله. waxaan jeclaystay inaan idin la qeybsado maadaama hargabku iska batay qandhada iska badan tahay hooyooyin awdanahay ilmo yar yar iska haysano ma fiicna ilmaha qandhada markay qabato in lagu fiirsado. waxaa fiican waxyaabaha qandho jabiska ah, waxyaabaha fudud inaad guriga iska dhigatid si marka aad u dareentid ilmaha yarka ilaa hooye adaa dareemi kara, adaa dhakhtarka ugu horeeyay waa adi marka dareentid bis aa ula tacaashid adoona dhakhtar geynin. isticmaal waxyaabaha fudud oo u baahneen dhakhtar inuu soo qorin. barmashiga tay kartaa oo soo iibsan kartaa guriga dhigan kartaa. sida hadda sharabadan oo kale oo baraseedka oo kale way fiican tahay inaad guriga iska dhigatid oo qandho jibin. ilmaha yararka oo kale oo umasha tan hadda 2 jir ilaa 5 jir waaye waa qandho jibin. tan oo kale hadda waa tii caburka sanka lagu buufinayay ilmaha wuxuu kaama dhibaysan dhakhtarna uma baahno waa isku ilaalin kartaa. tan oo kale hadda waa boostada waaye hadii ilmaha qaar waxaa jira aan ka qaadanaynin sharabo jecleen oo isticmaali kartaa. tan oo kale waa qandho jibin beebiyaasha yaryarka oo gaarin daawooyinka aan gaarin inkastoo ayaga u fiicneen mar walba in ayaga horta daawo lagu la degdego ilmaha yararka beebiyaasha ah haddana waa ku qasbanta inaad qandhada ka jabisid. tan oo kale waa tii qufaca marka ma dhibaysa daa guriga dhigatid oo ilmaha ku ilaashitid. tan oo kale waa hadda tii caburka iyo naqaska waa sharaba iyadana oo maxaan dhahayay oo ilmaha loogu talagalay iyo qofka weynba. marka waxaa fiicnaan lahayd waxaas oo dhan inaad ka taxadirtiin. ma aha cunuga marka uu qandhado in oo maxaan dhahay la sugtid ama aad dhahdid marka loo bariis taxbir qandheen dhakhtar geeyna inaad dhahdid waa laga fiican yahay dhakhtarka ugu horeeyo waa adiga. marka la tacaal ina maxaan dhahay u diyaar garowdid mar walba oo waxyaabahan fudud gurigaaga iska dhigatid aad ayay u fiican tahay. tanna waa sharabo fitamiin ayadana waxaa jiro ilmo yarar oo cuntada aad ugu fiicneen mar haddii cuntada ka xumaato ilmaha mar walba oo wixii la siiyo iska diidaay hadda wax xanuunsado awood ma yeelanayo. marka ugu horeysa wax xanuunsado ama qandhada buu soo dhacayaa. marka ilmaha mar alla marka aragtid inay daciif yihiin cuntadooda xun tahay waa inaad ka fikirtaa oo u soo gadaa waxyaabo caawinayo daba socotid. ilmaha aday amaano kugu yihiin adoo rabbi ku siiyay marka waajibkooda in laga soo baxo aad ay u fiican tahay. hooyooyinka ma sha Allah way wada dadaalaan laakiin waxyaabo badan oo iska qaldanna way jiraan. marka waxaan jeclaan lahaa ma sha Allah in laga fikiro ciyaalka waa laga fikiraa hooyo hadaan waan ka wada fikirnaa laakiin ma sha Allah waxa ka sii fiican in dadaalka la sii badiyo maadaama hadda hargabkii iyo shubankii waxyaabo badan hadda socdaan in laga taxdiro aad ay u fiican tahay. guriga iska soo dhigatid waxaa dhici karta caawa adoo hurdo kale xilli dambe waxa laga yaabaa cunuga inuu ka xanuunsado ma waxa sugay farmashiyaha inta laga furo ilaa subaxi salaada laga soo baxo farmashi laga furo ma sugay may gurigaaga dhigo si marka adiga wax u dareentid baa u caawis ilmaha yarka ilmo yar oo qandhan cid fiirsan karta ma lahan. ما شاء الله marka hooyo kaste waxaan jeclahay inay iyadana saas oo kale u dadaasho way dadaalaan hooyooyinku waa ogahay marka inay dadaalaan ma sha Allah aad u fiican tahay. waxa kale oo jeclahay inay idin la qeybsado laba shay kale insha Allah tan waa isla fahanayba waa wada taqaaniin waxaan oo dhan ma sha Allah tabarakallah waxaan jeclaystay sida aniga aan u isticmaalo ama aan u diyaarsado baan idin la qeybsanayay ma sha Allah. marka soo dhawaada idin leeyahay waana ku mahadsantiin daawashadiina insha Allah. waxa kale oo jirto oo aan aad u isticmaalaa ilmaha markay iga xanuunsadaan
alaabtan aadaan u isticmaalaa maasha Allah waa ka dambeeya waxa basuuda waxaan ku daaweystay xitaa cunug oo laga daaweyn waayay cambaarta aan ku daaweeyay maasha Allah tabaarakallah ilaahayna uu caafiyay uu ka fiicnaaday oo bamaato wax u tari weysay kiniin wax u tari waayay maasha Allah tabaarakallah ayadaan ku daaweeyay qufacoo kale waan ku daaweeyaa oo igu caafimaadaan soo waxa adiga u niyeysatid ay ku xiran tahay sida u niyeysatid ani waa niyeystay aadna u jeclaa maasha Allah tabaarakallah xabsuudada aad ayaan u jeclaa maasha Allah ka dayma darnaanin bahashan waan jeclahay maasha Allah aad ayay u fiican tahay maasha Allah soo gata guryaha dhigta ka dayma darnaanina waliba miraheeda xitaa maasha Allah miraheeda waxaan ka samaystaa shaah aan u sameeyaa ilmaha yarkay hadda adi mar walba samaysatid oo kabada dhahdid oo bartid way baranayaan haddii laakiin hooyo adiba aad isticmaalin ma isticmaalaan laakiin waxa adigii u badan tahay maasha Allah way baranayaan ciyaalka xabsuudada aad u fiican tahay shaahna ha looga dhigo saliideedana maasha Allah marmar waxaa dhici karta xitaa aan sharabada qufacayna wax ii tari weyso markay aad u qufacaan in wax ii tari weyso dhici karto ayadaasaan isticmaalaa marmar waxaan ku shubtaa tan bahashan waan soo iibsaday farmashiyaanka soo iibsaday tanaa ku shubanaysaa dhibicaa u siinay hal dhibic ama laba dhibic afka dhibic ugu siinay biyo yaraan ku kabsiinay maasha Allah aaday kuwa caawinay waxaan rabay kale inaan idinla qaybsado saliidan ayadana saliidan waa saliid saytuun gabar walaasha ila qaybsatay khayr Allah siiye anoo dhig i xanuunayso aad i xanuunayso oo daawo waxba iga tari weysay aan isku samaystay xabad toona iyo 3 qaado oo saliidan saytuunka aan isku kariyay saliida kululeynay marka hore toonta ku dhaxriday toonta markay buruun noqoto saliidii dhulka dhigay markay ku qaboodona hadda kala noocaas ku shubanay ku hayna muddo ku hayna qaladaas ku shubanay oo isticmaalay dhigta 3 dhibic 4 dhibic ku shubanay waa saliidunta ayadoo daawo ah haddana waxa ku sii darsatay toon aan ku sii karisay aad looma karinayo saliida wax yar un baa dabka saaray toontaas markay buruun noqotana waa ka dijinay waa u isticmaalaa dhigtaan u isticmaal alxamdulillah waana ku caafimaaday marka maasha Allah tabaarakallah